بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. horta magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Macalin Muuse marka koobaad أولا قبل كل شيء waxaan u mahadcelinaynaa Allaahina بعد الحمد waxaan u mahadcelinaynaa TV-ga na soo booqday ee naga qaado hay waraysiga afkaarta ummadda Soomaaliyeed wax cid walba waxay qabtana weydiiyo haya afkaartayna haddaan ka dhiibanno waan u baahanahay dawladda cid samata bixi karta wacyiga lagu jiro aad baan ugu baahanahay laakiin haddana dhaliil waxaan qabnaa Cumar Cabdirashiid uma qalmo madaxweynuhuna waa oo aad u sirriday waay sababaan u yeelinaa sababtaasuna waxay tahay dawladdii gadatay geyiga Soomaaliya iyo badda Soomaaliya madaxuu u ahay ilaa hadeertan dhulka Soomaaliya inuu ku darsado oo si gato ayaa in loo baneeyay ayaa ku aragnaa marka madaxweynaha waxaan leenahay fault weyn ayaa ummadda Soomaaliyeed ka gashay كلي وانا طريقنا وكل سنة واحد كمدا إنه بدي الصومالي وقعن جريء دولة كينيا حدر تانا إلا كينيا نجمع لوب بحنا إلا ولي وين رجوكتا سيد أكتهم بس مركا واحد رجينا إن حدر إنه ودرجة والله ده ما دام هي من الصومالي تعدي سؤال مبارك هاي سيدا بدل السكواش كده شعبنا وصلنا تاجر بدل كلهين وصلنا أقول كلهين ودنك لو أتنك السنة تقالد كجري هي قبائلات كجري حيوان كجري وصلنا سوى وعنا كان علينا إن التهي إن ضدك أي تهي ما يقبل الله كذا لكن أنا جا فكران ما أمن سنين وحبس هو كل كروايو إن لا صعد معه وعي كجري ودنك هي تقالدي كان عاي iyo qabaa'ilka oo in badan waa ka maqnay hadana inuu fahmo waxay ku qaadanaysaa in ka badan 2 sano ka bacdi dawladdu waa dhacay in ra'iisul wasaaraha cusub ee la doortay Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake in aysan waxba aynan u soo korri doonin dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdii hore ee Sheekh Shariif waxaan uga baranay in uu noqdo nin shakhsi ah dana gaar ah kala oo dawladda Kenya la galay hadda waxaan filanayaa maadaama lagu dhawaaqistana uu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan filanaynaa in uu Ilaahay noogu bedelo qeyb xildhibaanada dawladda Soomaaliya in ay kala laabtaan maadaama uu ahay ninkan nin hore dawladda dalka Soomaaliya ka soo galay dambiyaad fara badan aad u fiican in la magacaabo ra'iisul wasaarihii dalka waxaan aad u sugayno waaye haddana waxaan maaragtay ku faraxnoo soo dhaweynaa ma galabtan uma soo yeelin saan maaragtay ninka la yiraahdo ka rajo qabnay madaxweynahana maaragtay kama rajaynaynin hadda howluhu maaragtay Cumar Cabdirashiid ku magacaabo Cumar Cabdirashiid horaan u soo aragnay marka niman hore loo soo arag inaan anba barano banin wadaniga maaragtay ninka la yiraahdo hore loo soo arko siyaasiyiinta waa laga helayay sidaas aan yara jeclaalahayn baarlamaanka ka codsanayna inay maaragtay arrintaas ay ka noogu xil saaran inay maaragtay nagala dagaalamaan إن شاء الله هدي الله الماركتي. السنة قاسة waxaan leeyahay in kastoo jecleen in aan isweysaaraha farmaajo aan ku weyn ninka la dhaayo farmaajo in la doorto balse in kuweysa in uu san la taqaan aan la dooran hadana waxa waaye waa ninka la Cabdirashiid waa isweysaarihii hore ee Soomaaliya hadana abdul loogu dhamacsan waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed in ay mataqaana gacmo furan ku soo dhaweeyaan gacmaha ay isqabsadaan oo mataqaana wadankeena aan heshiisiin iyo mataqaana aan hal gaari lahayn oo mataqaana isaga dumarkeena iyo dadka dibadaha ku baabay dumarkeena wada dhibaato ku haysato dhalinyarada sidoo kale marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsato waxa hal u gaari karaa in dadka Soomaaliyeed ay taageeraan dawladda Soomaaliya ولي رئيس الوزراء بدنا ورا صوت دورتين لكن ما أعرف من عمر عبدالرشيد ولا من ده معي هذا كور ما دام رئيس الوزراء لقد أنا كمرة من فرح ما دام عبدالرشيد حرب 10 سنوات فريد وضربي وحوطان waxaan u sheegaynaa hadda inuu dadaal soo biyo dalkiisa oo la qayb taasay qortay